waxaan idin soo gudbin doonaa qiso xanuun badan. qisada waxa ay ku bilaabanaysaa sida tan. waan idin wada salaamay dhammaan beejka mucaashaq ofishiyaal inta ku xiranba. salaan kadib, magacaygu waa Munir Yare. waxaan jeclaystay in aan idinla wadaago qiso xanuun badan aniga igu dhacday. uma soo bandhigin inaan xusuus galo, laakiin waxaan la wadaagayaa asxaabtayda si ay ugu noqoto dhiirigelin. sanadka markii uu ahaa 2017 dhammaadkeedii ayaa waxaan isbaranay gabar lagu magacaabo naadiya. waxay ahayd barashadeennii mid aad ii soo jiidatay, weliba na dhex martay jacayl baaxad weyn. waxay i tustay jacayl ka duwan kuwii hore. waxay ahayd qof noloshayda inta ka dhiman aan ilaawi doonin, qof naxariis badan, xilli walba i dareensiisa farxad iyo kalgacayl ay ii qabto. anigu waxaan ahaa makhluuq aan garanaynin dantiisa. waxaan u jeclaaday si xad dhaaf ah. waxa ay i gelisariyo gabagabadeeda aan noqday mid la taha xanuun fara badan. qof walba wanaaggiisa lama xaqiro, xitaa haddii uu ku xumeeyo, walow aan aniga u dhalo in aan qof xumeeyo. noloshayna waxa ay ku socotay sida ugu quruxda badan, lamaanin ama laba xiriir wadaag ah, kuwa ugu qurxoon ee aan isdhihi karo. maanta kuwa naga nasiib badan ma jirin, waayo haddii aan codkeeda maqlin maalintaas oo dhan waxaan ahaa mid murugooda. mislan wacadtalkeeda meel walba aan codkeeda ka maqli karana ayaan ka raadi jiray. habeeno badan waxaan wada qaadanay waqtiyo aad u macaan. hadalba hadalka uu ka macaan badan yahay ayaana dhex marayay. haddii aan wax ka tilmaamo, erayadeeda waxaa ka mid ahaa: xabiibi, nolosheeda qofna kuma aamini doono, hayga fogaanin. balani wacad waxaan kaaga galay nolosheeda haddii aad xumayso xitaa inaanan kaa fogaanin. xitaa haddii uu calafna kala geeyo, waxaan ahaan doonaa mid mar walba garabkaaga taagan. waxa uu waayuhu socdaaba saacadba saacadda ka dambaysa aan isu noqonayn laba lamaano isku dhow, aadna isku jecel, weliba qalbiyadooda aan marnaba kala fogaan isku wada jira. anigu waxaan go'aan ku gaaray jacaylka aan la taahayo in aan nolosha ka guulgaaro. gaarida aan hablaha ka doortay aan la wadaago nolol, laakiin qadar alle waa mid qora. waxaa dhacday in aan ku arko isbeddel fara badan, xanaaq fara badan. waxaan ku bartay farxad, waxaan ku bartay raaligelin, waxaan ku bartay naxariis. laakiin wax walba waa isbeddeleen. xilliga aan la hadlo oo aan ku dhaho maxaa kugu dhacay, waxaa igu jawaabi jirtay waxba, adaa ismoodsiiyey noloshayda. waxa ay noqotay mid ku jirta mugdi. waxaan ka go'ay cunnadii. marka aan codkeeda maqlo, waxaan ahaa mid ilmeeya ayadoo aan la hadlayo, haddana aysan ii jixinjixaynin. wax walba waxay ii noqdeen qaraar. habeenba habeenka ka dambeeya, habeenaad ka mid ah ayay waxay igu tiri: waxaan doonayaa noloshaada in aan ka baxo. waa habeenkii nolosha aan ka quustay. waa habeen mugdi ii ahaa aniga. waan su'aalay, waxaan ku dhahay: sababta aad nolosheeda uga baxayso maxay tahay? macanto ma qalad aan ogeyn ayaa jira? xabiibi, maxaa dhacay? wax ii sheeg. waxa ay igu jawaabtay: waan go'aansaday keliya waxaan noqday maqano joogay, qalbigii ka gubanayo, misna jirkiisa uu xaadir yahay. waxaan darteeda u galay shil. waxaan u maray xanuun aan halkan lagu soo koobi karin. xilligaas waxa ay maqashay in aan galay shil. jawaabta ugu horraysay ay bixisay waxay ahayd: waa beentiisa asaga. nolosha markaad qof jeclaato haddana uu kaaga baxo dhib ayay leedahay. waxaan xusuusiyey ballamihii aadka, wacadkii aadka ay ayda qaaday, anigoo dhihin iga qaad. jawaabaha ay siinaysa waxay ahaayeen inta badan kuwa laga dareemayo jees. waan sabray, weliba aad ayaan u adkaystay hadalladaas jeesjeeska ahaa. ileen waxaan ahaa naf wax jecel, weliba waxaan islahaa goormay qaladkeeda ka soo laaban doontaa. laakiin sugiddii aan sugayey kama aanan deefin. ilaa nolol xumo mooye
iyo kalsooni daro mooye xero kale ayay yeelatay welibana qalbigayga ay ku gubayso wax badan waan ololay oo waan ilmeeyey laakiin alla ayaa mahad iska leh waxaa garabkayga taagnaa walaashay aan marnaba abaalkeeda goodi karin fartuun axmed cabduqaadir waa qofka keliya qalbigayga ii qaboojiyey xilli walba garabkayga taagnaa walow ay adag tahay in aan bogsado ayna igu luntay kalsooni fara badan aan shalay lahaa fartuun waa walaashay allaha ii daayay ugu dambayn waxaan kuu soo marnayaa hawada naadiya waad ku mahadsan tahay sida wanaagsan aad iga fikri jirtay waxaad ii bartay cashar ii noqon doona kuwa aan ka digtoonaado waxaad i tustay in lagu kalsoonaan karin qof bini'aadan ah anigana ha iga filanin inaan xumaato kula kaco sida dhalinta qaarkood oo kale xil walba waxaad ahayd ma qarin doono laakiin maalin waad dareemi doontaa xanuunka aan maanta maray oo kaleete nacabkaaga ma ahi laakiin waa rajayn doonaa inay cashar kuu noqoto si aanad beri naf kale ugu cayaarin noloshiisa guul ayaan kuu rajaynayaa maanta anigu noloshaada waan ka baxay xor ayay noloshu kuu tahay waad ku mahadsan tahay soo dhowayntii iyo barashadeenii koowaad gabagabadii hadalkayga inta ku xihan beejka waxaan idin leeyahay ha xumayn noole ku jecel hana niyad jabin abid gaar ahaan gabdhaha wiilashu waa ay idinla dhasheen ixtiraam sidoo kale ragow gabadhu waa hooyo dhowrta haddaan la isdhowrin waxa ma hagaagayaan hawaaro jacayl